waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Kalsame TV waxaan idin soo gudbinaynaa Somaliland iyo SSC Khaatumo oo qarka u saaran in dagaal qaraar uu ka dhax qarxo iyo labada dhinac oo wada markaasi gurmad iyo sidoo kale diyaar garow xoogan oo ay ku doonayaan in midka kale uu markaasi kula diro haddaba madaxweyne Cirro oo hore ugu baaqay in uu nabad markaasi ay doonayaan oo nabadda uu ka shaqeynayo ayaa hadda waxay u muuqataa inuu qaaday tubtii Muuse Biixi isagoo markaa isla bal markaagana soo tijaabi dhanka SSC Khaatumo war ayaa ka soo baxay oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka soo cusboonaaday dhanka Somaliland xagooda balse intaan guda galin waxaan ka codsanaynaa haddii ay tahay markii kuugu horeysay na soo booqatay in subscribe-ka noo taabato muuqaalkaana like asaarto taasi waxay naga saacidaysaa in dad badan uu gaaro muuqaalkeena sidaad badankii la wada socotaan Somaliland iyo SSC Khaatumo in muddo waxa markaasi ka dhaxeeyay colaado tan iyo dagaalkii Goojacad wixii ka dambeeyayna dagaalo goosgoos ah ayaa ka kala dhacayay deegaano markaasi kala duwan oo ah dhanka xuduudaha ee markaasi kala wadaagaan Somaliland haddaba hadda maxaa keenay in colaada ay soo cusboonaato maxaa keenay in mar kale dagaal markaasi loo gurbaanto madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro waxa uu sheegay dhawaan in nabad ay doonayaan isla markaana ay ka shaqeynayaan xagooda wax walba oo nabadda hore u wadi kara loogana baaqsan karo colaad balse taa bedelkeeda hadda waxa muuqanayso in Cabdiraxmaan Cirro kaliya afka uu ka sheegay nabadda balse uu hadda iyo kow isku dayo in uu maro ama uu soo tijaabiyo jidkii Muuse Biixi uu shalay hore u qaaday ee ahayd in gacanka hadal iyo awood wax lagu maqooniyo hadda wuxuu isku dayayaa Cabdiraxmaan Cirro in uu arrintan dagaal markaasi uu kaga jawaabo isla markaana uu toos u weeraro fariisimaha ciidanka SSC Khaatumo inuu toos u weeraro yuu qorshuhu yahay wararkeena soo gaaray waxay sheegayaan in gaadiid gaashaaman hub culus iyo ciidamo aad u fara badan in Somaliland ay dhoobtay goobaha dhaqdhaqaaqyada ciidan ay ka jireen maalmihii u dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoogan ayaa dhawaanahan waxaa markaasi laga dareemayay jiidaha ay isku hor fadhiyaan ciidamada SSC Khaatumo iyo kuwa Somaliland hadda waxa laga cabsi qabo waxay tahay ama ay qarka xaaladda u saaran tahay in dagaal u qarxo xukuumadda Cirro oo marna ku baaqday nabad ayaa dhinaca kale hadda ciidamo iyo gaadiid waxa ay ku soo markaasi dadgureynaysaa furimaha dagaalka ee labada dhinac halka ciidamada SSC Khaatumo qodhooda ay muujinayaan diyaar garow xoogan oo ay doonayaan in ay kaga hortagaan wax kasta oo dagaal oo kaga yimaada dhanka Somaliland ilwareedyo aynu soo xiganay oo amni waxa ay markaasi sheegeen waa ilwareedyo markaas lagu kalsoonaan karo wararkooda waxay markaasi noo tilmaameen in Somaliland markaan ay go'aansatay dagaal ka dhan ah SSC Khaatumo taas oo muujinayso in bixitaankii Colonel Biixi waxba iska bedelin tubtii Somaliland ay haysay ee Hargeysa ay markaasi kaga jihaysnayd dhanka deegaanada SSC Khaatumo siyaasadda Hargeysa kuma qanacsana maamulka curdunka ah ee SSC Khaatumo marnaba kuma qanacsana hadda waxa socda marka guluf labada dhinacba ay wadaan oo ay ku doonayaan midba midka kale in uu ku riixo dhanka SSC Khaatumo war ayaa ka soo baxay wasiirkeeda markaasi warfaafinta waxa uu sheegay in Somaliland يعني waxa ugu baaqay Somaliland
wax markaasi waxa ay leedahay in ay kala garato iyo waxa aysan lahayn. Najiib Barkhadle waa wasiirka warfaafinta SSC Khaatumo oo ka hadlayay kulan ka qabsoomay magaalada Laascaano ayuu arrintan kaga hadlay. waxa uu yiri haddii nimankaasi waa Somaliland ay kala gartaan waxa ay leeyihiin iyo waxa aan leenahay nabad ayaa noo xirmaysa. inta ay sad markaasi damaaciga dhulka markaasi dhulkayaga ay wadaan halkaas ay noo joogaysaa oo ula jeedo colaad ay markaasi noo taagnaanaysaa oo xaaladda halkaas noo dhaafi mayso. hadda marka dhinaca kale nabad ayuu ku baaqayaa laakiin hadhow markii colaad timaado in la isku riixo ayaa imaan doonto oo qoladaas ayaa bilowday iyo qoladaas bilowday hadhow ma noqon doonto yacni marmarsiyo waana inta badan sida dhacda marka laba dhinac uu dagaal dhex maro in la isku riixo oo cidda dagaal ka bilowday ay qiran waayaan. hadda waxa hawada la soo marinayo waa hanjabaado balse xogta dhabta ah aynu helno waxay tahay in labada dhinacba ay wadaan diyaargarow xoogan oo ciidamada dhammaan heega la geliyay dhanka Somaliland ciidamadii ugu badnaa iyo gaadiidkii ugu badnaa ay soo daabuleysay maalmahan. dhanka SSC Khaatumo laftirkeeda ciidamo cusub ayaa qaarkood tababar loo furay qaarkood loo soo xiray. ciidamadaasna waxa la isugu geeyay dhammaan goobaha dhaqdhaqaaqyada ciidan ay ka socdeen muddooyinkii ugu dambeeyay. haddaad nala soo gaartay ilaa dhammaadka muuqaalkan waxaan kaa codsanaynaa in subscribe-ka naga ilaawin muuqaalkanna like aad saarto si dad badan uu u gaaro aadna u hesho wararkeena xiga iyo wixii ka soo cusboonaado xiisadan u dhaxaysa Somaliland iyo SSC Khaatumo.